maalintii ugu hadalhaynta badneed 15 May dhamaadka muddaxileedka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud imaanshiyaha dawlad cusub khilaafka jira wada hadallada socda mucaaradka oo banaanbaxyadii dib u dhigay wararkaasi oo idil iyo hadalhaynadii la xiriiray 15 May marka la gaaro wixii ka dambeeya wixii dhici lahaa ayaan halkan idinkugu soo koobi doonaa saaxiibayaal hadeeta markay kugu horeysay xaaladda guud ee Baydhabo waan eegi doonaa subscribe noo dhahay channel-keenan qaybta hoose ee faaladan aragtidina nagula wadaaga saaxiibadina la sii wadaaga muuqaalkan si uu meel dheer u gaaro sidoo kalena aan u helno saaxiibo wanaagsan sida idinka oo kale markale soo dhawaada saaxiibayaal waxaanu ku bilaabeynaa magaalada Baydhabo saraakiishii la dilay madaxweynihii koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo wareysi ku sheegay in 15 May marka la gaaro sarkaal kasta oo dhibaato ka geysta magaalada Baydhabo ay tallaabo cad ka qaadi doonaan maxaa ka jira in weerarkaas iyo hadalkii uu madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen horay uu u yiri ay isku soo aadeen oo dagaalkii Baydhabo shalay ka dhacay ilaa saacadanna xogo kala duwan iyo tuhno ama kala shaki la xiriira dilka saraakiishii baxday oo waliba durba ka dhex dhalatay isla ciidankii weerarka ahaa ayaan halkan idinkugu soo gudbi doonaa saaxiibayaal laakiin waxaynu ku hormareynaa magaalada Muqdisho kulamada socda mucaaradka iyo barnaamijyadii ay dib u dhigeen sida aad ka warqabtaan badankiin xeendabka xalane waxaa maalintii saddexaad ku shirsan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo muddaxileedkiisu ay ku egtahay caawa 2 saac marka la gaaro oo waliba daqiiqado ay raacaan iyo sidoo kale xubnaha golaha samata bixinta iyo guud ahaan golaha mustaqbalka Soomaaliyeed oo ay horkacayaan madaxweyne Shariif Sheekh Axmed iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni wada hadalladan waxa ay la leeyihiin wakiilada beesha caalamka iyadoo si gaar ah looga hadlayo arrimaha siyaasadda Soomaaliya sidii wax looga qaban lahaa arrinta la xiriirta doorashooyinka iyo guud ahaanba amniga guud waxa la warinayaa in kulanka labadii maalin ee ugu dambeysay la isku afahmi waayay qodobada qaar halka kuwa kalena durba laga heshiiyay oo heshiisyo hordhac ay ka soo baxeen Villa Soomaaliya dhowr qodob ayaa la tilmaamay in la hordhigay in nidaamka doorasho ee dalkan uu aadayo aana si toos ah hadda loo aadi karin doorasho qof iyo cod laakiin mid u eg midaas oo waliba looga maarmi karo khilaaf ama firaaq dastuuri ah iyo khilaaf markaas ka dhashay arrimaha doorashooyinka looga maarmi karo taasi bedelkeed waxa la wariyay Villa Soomaaliya in aqbalaadaasi ay ku qaadatay waqti dheer inay aqbasho arrintaas waxaana taasi bedelkeeda uu doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud doorashada qof iyo codka ah ee isagu uu sheegayo inuu ka qabanayo maamul goboleedyada dalka iyo guud ahaanba Soomaaliya magaalada Muqdisho ayaa kol hore gaar ahaan gobolka Banaadir doorasho gole deegaan looga qabtay qaarkoodna dad ay ku geeriyoodeen oo Allah u naxariistay in darawal ahaa oo muddo ku siman habeen iyo maalin waddan ku soo jiray lagu dilay degmada Gubadley ee gobolkan Banaadir sidoo kale maamulka koonfur galbeed deegaano kamid ah ayaa iyadana laga qabtay taas oo natiijadeeda ilaa iyo hadda la isku haysto xeendabka xalane shirka ka socdana kama reebin wakiilada beesha caalamka iyo golaha mustaqbalka Soomaaliyeed in arrimahaas iyo idil indhaha loo wada saaro laakiin dhamaantood ay yihiin in dhasarcaad dawladdu ay ku doonayso inay ku banaysato muddo kordhin hal sano ah oo sharci darro ah sida golaha mustaqbalka ay ka hor sheegeen wakiilada beesha caalamka dood adag ayaa wali socota maanta ayaa la tilmaamay inay tahay maalinta ugu dambeysay ee loo go'aamin lahaa qodobadaas iyo shirkan waxa ka soo baxa wakiilada beesha caalamka go'aanka ay qaataan iyo waxyaabo kale hanjabaado ayaa soo baxaya oo ku aadan wakiilada oo kaga imaanaya dhinaca dawladahooda taasi oo haddii heshiis rasmi ah ay dhinacyadan ka keeni waayaan inay isaga soo baxaan Soomaaliya oo si rasmi ah caalamka ay ugu sheegaan in Soomaaliya qatar weyn ay ka jirto oo uu ku hayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa jirta saaxiibayaal dhaqdhaqaaq aad u xoogan oo arrintaasi lagu doonayo in lagu xakameeyo sidoo kale mucaaradka waxay ku dhawaaqeen 16 May oo ay kaliya saacado ka harsanayeen in mucaaradku ay qabtaan banaanbax ay iyaga horkacayaan maadaama banaanbixii hore laga hor istaagay xilli dawladdu ay muddaxileed rasmi ah haystay laakiin hadda waxay sheegeen in madaxweyne hore ay u yaqaanaan 16 May madaxweynihii Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa taasi ay keentay in wada hadallada la sheegay in fursad loo siiyo sidoo kalena mucaaradku ay joojiyaan banaanbaxyada ay doonayaan inay ka qabtaan gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxa taasi ay keentay in guud ahaan la hakiyo banaanbaxyadan oo dib loo dhigay laakiin aysan jirin banaanbax baaqday oo maalmaha soo aadan ay shaacin doonaan oo si rasmi ah ay shacabka Muqdisho uga qayb gali doonaan si gaar ah dadka tabaalaysan ee waliba laga barakiciyay guryahooda qaarkoodna hooy la'aan ku ah gudaha caasimadda qaarna guryo qaali ah oo hore waligood aysan hore u degin ay u degeen oo halkaas caruurtooda ay ku ammaan gelinayaan
halka kuwa kalena ay ka qoosteen ku noolaanshaha magaalada muqdisho ee caasimadda dalka oo goboladii dalka ay dib ugu laabteen. intaas aynu ku dhaafo muqdisho banaanbixii oo la hakiyey 15 May oo la joogo oo mucaaradku go'aankii ay qaateen mar kale dib markaasi ay u hakiyeen banaanbaxyada oo mar kale la filayo in lagu dhawaaqo oo maalin kale loo madlo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo 2 saac habeenimo ee caawa wixii ka dambeeya loo aqoonsan doono madaxweyne hore oo aan dalkan sinaba u maamuli karin. luuq kasta madaxweyne xasan sheekh maxamuud isaga ayaa isku taagay xilligii uu mucaaradku ahaa wax walba oo dalkan uu ka dhihi karay ama madaxweynihii isagoo ka horreeyay uu ka dhihi karay waa uu ka yiri. hadda hadaladiisii ayaa dib loo soo fagayaa oo hadal kasta oo uu yiraahdaa hadal kale loo keenayaa, taas oo caqabad weyn ku noqotay kooxda la shaqeysa madaxweyne xasan sheekh maxamuud. intaas aynu ku dhaafno baydhabo aynu aadno madaxweynihii dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen waxa uu ahaa nin maamulkaasi koonfur galbeed inta uu joogay waxyaabo badan baydhabo iyo bakoolba ka qabtay si gaar ah deegaanada labadan gobol, laakiin shabeellaha hoose inta badan lagu tilmaamo in uu ka hagraday wax kasta oo ay mudnayd xitaa mashaariicdii ay xaqa u lahayd aysan helin. taasi bedelkeed waxaa dhacday in dowladda federaalka Soomaaliya khilaaf uu soo kala dhaxgalo, ugu dambeynna hubkii ugu badnaa, ciidankii ugu tirada badnaa, gaadiidkii dowladda kuwii loogu talagalay furimaha dagaalka iyo la diriirka kooxda argagixisada ah ayaa lagu weeraray, xitaa diyaarado looma reeban. waxaana taasi ay keentay in si degdeg ah uu isaga baxo magaalada baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee koonfur galbeed. ciidan isaga ka amar qaata ayaa baydhabo ku sugnaa oo markii ciidanka dowladdu ay galeen kadib banaanka magaalada uga baxay awdiilna hal la yiraahdo oo ay kasoo jeedaan siyaasiyiinta ugu badan ee maamulkaasi koonfur galbeed si gaar ah madaxweyne laftagareen ay tagaan, walow markii dambe looga daba tegay qaarkoodna heshiis lala galay oo dib loogu soo celiyey maamulkii ku meel gaarka ahaa oo ilaa iyo hadda ka jiro koonfur galbeed, halka kuwa kalena ay diideen inay baydhabo kusoo laabtaan, ay doorteen inay gada aadaan. hadda mar kale dib ayay usoo laba kacleeyeen. ciidamada waxaa lagu abaabulay doolow, halka lagu magacaabo bohol garas ilaa iyo bardaale inta u dhaxeysa, waxaana la wariyey in ciidamadan oo abaabulan gaadiidkii ugu xooganaa wata ay dib ugu soo laabteen gobolka Baay, halkaas oo ay howlgallo isdaba jooga ka bilaabeen. saacadii lasoo dhaafo waxaa dhacay dagaal qaraar oo u dhexeeyay ciidamadan iyo ciidanka militariga Soomaaliya oo ku sugan duleedka magaalada Baydhabo. khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay. 2 sarkaal oo taliyo guuto ah ayaa nafta la wada dhaafiyey iyo askartooda. taliyaashaas ayaa lagu kala magacaabayay taliyihii guutada 9aad qaybta 6aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaanle sare Yunis Aadan Xasan iyo taliyihii guutada 8aad ee qaybta 6aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaanle sare Cali Cadow Maxamed iyo sidoo kale askar kale oo la socotay oo ku geeriyooday dagaal amba iska hor imaad markaasi u dhaxeeyay ciidamada maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ee waliba daacadda u ah madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo sidoo kale ciidamadan waliba dowladda federaalka Soomaaliya ka tirsan. ila kala duwan ayaa soo baxaya oo sheegaya in dilka shirqoolka ama dilka askartan ama saraakiishan uu ahaa shirqool loo dhigay, tuhunna uu hareereeyay dhammaan dilalka saraakiisha iyo askartooda, xilligana la bilaabo baaritaano ku aadan sidii loo ogaan lahaa waxa rasmiga ah ee ka dambeeya dilkan, maadaama horey weeraro kala duwan ay u dhaceen laakiin aysan ku geeriyoon saraakiil saameyn leh oo sarsare oo maamulkaasi koonfur galbeed ka tirsanaa, haddana dowladda federaalka Soomaaliya dhinaceeda u wareegay. madaxweyne cabdicasiis waraysi uu bixiyay kol hore waxa uu si rasmi ah ugu sheegay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud 13 maalin kadib xilliga waraysiga laga qaadayay ku aadaneed in uu shacab yahay, amar ka soo baxaana lagu maamuli karin maamulka koonfur galbeed. shacabka koonfur galbeed iyo guud ahaanba ciidankoodana ay qaadan doonaan go'aan adag oo ah in baydhabo looga xoreeyo salbaartu, maadaama uu sheegay in ciidamadan ay la mid yihiin ciidamadii caydiid oo xilligaasi madaxweyne sheeganayay, dagaal xoogan ay la galeen, dhibaato xoogan ay ka dhasheen. haddana waxa uu tilmaamay in baydhabo ay u diyaarsan tahay ka hortagga fal kasta oo lagu carqaladeynayo deganaanshaha iyo jiraanshaha umadeed ee maamulkaasi koonfur galbeed ee Soomaaliya. dhaqdhaqaaqa ayaa durba bilowday. madaxweyne laftagareen ama Nairobi iyo deegaano kale ama magaalooyin kale oo Kenya ka tirsan ayuu marba marka ka sii dambeeyay u sii safraya safar kale oo caalamka ama gaar ahaan wadamada dibadda ah ee waliba saaxiibada dhow la ahaa ayuu qorsheenaya maalmaha soo aadan. ciidankiisina duleedka baydhabo ayay isku soo shubeen. xaaladda baydhabana waxaa la warinayaa inay tahay mid aanan deganin oo meel kasta ciidan ayaa lagu arkayaa, kuwaas oo ka hortagaya fal kasta oo lagu carqaladeynayo ammaanka guud ee magaalada, xilli ay dhacayaan iska hor imaadyo iyo weeraro markaasi jidgal ah iyo kuwa toos ah oo waliba uga imaanaya dhinaca ciidamadan sida tooska uga amar qaata madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen.
afhayeenkiisii wasiirkii amniga saraakiishii madaxtooyada qaarkood ayaa si toos ah ugu biiray howlgalladan oo ka hogaaminaya duleedka magaalada Baydhabo. wixii kasoo kordhana saaxiibayaal guud ahaan arrimahan oo idil barnaamijyadina wararkeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. haddii ta markaa kugu horeysay aad soo boqoto ilaa dhamaadkan nala soo gaartay waxaan mar kale ka codsanayaa inaad nagu soo biirto oo aad channelkeenan subscribe dhahato qaybta hoose ee faaladana aragtidina nagula wadaagtaan sidoo kalena muuqaalkan saaxiibadina la sii wadaagtaan si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida idinka oo kale.